dhaafo hore nin Salmaan Rushdie la yiraahdo inuu nabiyullaahi Muhammad iyo quraanka ku ciyaaray buug oo qoro u bixiyay al-aayaat ash-shaytaaniyya waxa ku xigsaday kii Denmark iyo kii Holland labadaba aad ogtihiin kartoonka nabiyullaahi Muhammad ka sameeyay salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waxa weeye danka ugu horeeya dunida muslimka ah ee nabiyullaahi Muhammad jaa'ifa loogu geysto lagu afxumeeyo inuu Soomaali noqdo waa wax aad iyo aad looga murugoodo aad iyo aadna in laga maaragtay laga dhiibiyo u baahan way qofka muslimka inuu ka dagaalamo u baahan way waxaad ogtihiin sida waxan ay dhahaan baraha bulshada ay ku xiriirto la yiraahdo lagu wada faafiyo sida Facebook-yada sida WhatsApp-ka la yiraahdo sida YouTube-yada sida video baartay telefishinada iyo wasaa'il al-i'laamka waxa la yiraahdo idin in lagu faafiyay suurad nin Soomaaliya oo leeyahay laguna tilmaamay oo waliba la barakeysanayo leeyahay wa nabiyullaahi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeyahay ilma yar la soo ururiyay oo aanan maaragtay la habaabiyay music inta loo shido aayaadkii quraanka laftiisii lagu jeesjeeso oo la yiraahdo ya ayyuhalladheena aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliman la salaamu baraha bulshada soo dhiga u wada jeedaan wax qarsoon ma aha nin difaaci karana ma jiro waxaad ogtihiin ninka sawirka meesha lagu soo dhigay hoostiisa waxa ku qoran kelimad Swahiliya iyo magaciisa ku hoos qoran inaad aragtaan ma rajaynay waxa ku qoran Simba wa Mungu wax la yiraahdo yaani waxa weeye libaahi Allah ayuu jeedaa asadullah oo kale ka wada hoosna waxa ku qoran Sheikh Bilow ba waxa la leeyahay wa nabiyullaahi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi oo la barakeysanayo waxyaalahaas walaalayaal wax ka yar ayuu Ilaahay ku gaalaysiiyay kalimaad صح النبي عليه الصلاة والسلام غزوة التبوك مركو جوغي أي نين عيدن كي كتر سنة أو كوهد لي علماء قالوا منافق يدهن لكن علماء وحي إليه مؤمن بوها لأن آيدا تسينا يسينه مؤمنها لكن قالوا بي آيدا في سورة التوبة كجلتا سألت كسر دكتي وحي هاي ننكاس أيام مركو النبي عيني وحكويري ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء كلمات كاسو بيجر ما أنا أرك تذكر القرآن النبي محمد كجيد عليه الصلاة والسلام القرآن كآخرنا يوم ننكع نجعل وإنه علوش بوحسد كجعل بدل ما أرك نن حق هذا الكبد بدل ما أرك نن حق دجالك مركل الجو كفل اللي مبدأ ما أرك كلمات كسوفها نلي رعوف بن مالك سيد روايات كتمام يان أيا جوجي مركز سوير منافق باتها النبي المشري صلوات الله وسلامه عليه رسولك وكيل الجارسية مركو نكي مقلين رسولك الجارسية صلوات الله وسلامه عليه أي أوتجي أو نبي آلي مركي لو يديه لنمحاكم وخصبي أو يري إنما كنا نخوض ونلعب وعسكت حصاوة ودنا كم مريني واسك عياريني واسك لحقلني كلمات كاسوكوها مركز إلهي آياتها سودجي ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مركز قفك إنه مؤمن آية سنسة قد كفرتم بعد إيمانكم مركب إلهي الرميسين دبدين كوكو فرسان بالي واد قالوا ذيل مركب عذر دارننا ماشا مركب صور كاس إيه هاسك إيه وحل قاضي وحكو جري الاستهزاء والله نوجهز جاسو آيات كيس نوجهز جاسو رسول كان عليه الصلاة والسلام نوجهز جاسو آيات ماشا كموقتي وحدوتين كلام الله يعني انتهى سواء قاضي يا أيها الذين آمنوا صلوا ليرهضوا وإلهي القرآن كي وجهز جاسو ووجهز سوى جاس جاسو وحكو حكتين
إن لو قراعة وحلي لهذا معازف أو مارت ميزة لو قراعة نبي قالنا عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري في صحيح كسبنا حديث أبو مالك الأشجعي ورسولك عليه الصلاة والسلام ليكونون من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والمعازف والخمر والمعازف وحا إيمان دونه ومدى إذا حكم النقل دونه تدحل ليسته زينة إيه حرير ترك حلاليسته إيه خمرة حلاليسته إيه معازفته المعازف ومزامر الشيطان ميزي كذا ليرها تدحل ليسن دون إيمان يبوي مركا استهزاء آيات إلهي لغو جاسوي نين كان صوماليغا إن نبي محمد لغو الشيغو والنبي قال عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد نبي أنا حين للشيغين وين لغو الشيغين كانوا نبيا رسول كيبوا أدين كان بالي waxaad ogtihiin qolada hadda Ahmadiyada la yiraahdo ee loo yaqaan meelo badan Ahmadiya laga yiraahdo laakiin Qaadiyaniya loo yaqaan magaalo Qaadiyan la yiraahdo ka soo baxeen shib qaran hadiya waa kufaar mujmac culimada dhan ay gaaleeyeen mujmac ku yihiin maxaa lagu gaaleeyay waxay sheegeen Nabi Maxamed ka dambeeyay oo la yiraahdo Ghulam Ahmed Mirza ayay la yimaadeen nabi ka dhigay oo yiraahdeen ayadahan Nabi Maxamed Quraanka Ilaahay markuu leeyahay يأتي من بعد اسمه أحمد كان نبي محمد ما هينه وغلام أحمد ميرزا وياه بيليه سو ما جدي مركا كوا سال جالسية كوا منافقين تشيعنا كوا النبي كلمات كوا لا جالسية نينك نبي محمد ونقانه عرب إنه أها قريشي أها صلوات الله وسلامه عليه سيرة يسأل نقانه ماشوا كل شيء ماشوا كل شيء نقانه ولا صومالي هلك جوجو وضوب صحيح كل المامي نبي نواك نايل برينا waxa ku soo xigto sidii ninka Saamiri oo sameeyo kale in uu Muuse ninka Saamiri leeyahay Nabi Ilaahi Muuse alayhi salatu wasalaam la joogay markuu Nabi Ilaahi Muuse miiqaad ka aaday oo uu tagay ayaa waxa dhacday ninka inuu fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwa faqalu hada ilahukum wa ilahu Muuse hadda maxana leeyahay nabigeena waa kana odaga salka fadhiyo sheekh bulo lagu magacaabay masawirkiisa ku yaala leeyahay nabigeena برني ما حكوا سوحجو إلا يراد هذا إلهكم وكو سوحجو إلهي إنه واكن إلا يراد مركو وحن لنا هاي وحويان يعني كلمة داس وكلمة كفر وقال لماء قفك صاحب كيسان ومرتد ويدين كانوا وكجب حياة أرنتاس مركو حال الرباء ضدك إسكاله هي هذا مخول كأوه نول بملها محكمة دين تيسع أنك نومو تعالى يعني نومتها الله دين كيسا أما حبس كيسا أما وحو متمرين تيدا أنا نومتها الله أحد الناس متها وحيوتها الله سلطة تتك أما الدولة دا أما مارك المسؤولين تماشكا أي أوتها الله تنفيذ كيدا يفلين تيدا أي قال قربا حديث إلهي رسول كيسا أي قرد قاقوا وإيان وأرنتها سنة بري قيامها إله وكل حساب كمايا تتك علماء وحيليهن إني عديان مسألة داس إني عديان أين قرين وحق أيدك أشيغان marka ani waxaan leeyahay dadka gobolkaas ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo waxa laga sameeyay koonfurteeda waliba lama oranayo Gaalkacyo idil koonfurta Gaalkacyo waxa laga sameeyay ee jaaifada iyo aflagaadada Nabi Maxamed lagu sameeyay dadka dawladda iyo maamulada iyo waxa ka taliya galmudug iyo kulli waxa soo dhanba u taala annaguna maadaama dadka meeshaas loo nisbeeyay aan nala ku tiriyo وحن لنا وحسوا كفري وقال نما ورد ما لنا هذا وبالله التوفيق والسلام وكسو جيد deegaanka Kaalkacyo gaar ahaan dhinaca koonfurta ninka isaga ah sida culimadii iga horeysay sheekhu ugu dambeeyay ay ka hadleen waxa uu adilada sharciga sidaan ogsoonahay adilada macsuumada oo saddex qaybood kitaabka sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam yajma'a culimada ahlus sunnah saddexda qayboodba waxay ku kulmeen qofka nabiga ku jeesjeesa ama ilaahay aayaadkiisa ku jeesjeesa ama waxa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan laayqayn ka sheega qofkaasu kaafir billahi al-azim inuu yahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam man badala diinahu faqtuluhu ninka wa kaafir billahi al-azim bil kitabi was sunnati wal ijma' qofka waxa way u danaaniya oo garab istaaga oo arinta ka raali noqdana asaguna waa kaafir billahi al-azim ninka garab istaaga oo kufriga ku garab istaaga ka ina man kaan ama qarabaha noqdeen
أما هكشيء أما صاحب الله هذا وقال إلهي كقال بوي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبتلسكي سوال يقالنا خيركم كل شيء على قرنيا ماشوا كل شيء على قرنيا هل كل شيء على قرنيا صدق يلا باتنسون النبي الله محمد مجعي سوى عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو يديس وأمينة بنت وهب وقرشي هو يديسنا وقريش قضايا أفريكانا أنت بنانك الله صادق إلا يراه والنبي جيني معناه ذو حويان قرآنك وحال وسودتي نك أفريكان كالصومالي نك هذا الكاكوه الله وخائن كافر بالله ولبا وحوي ذنبك وقالي ما هم كفر عادي قفكم مركو قالوا به وتوبت كانك را إلهي وصل توبت كانك را توبت سنة مقبولة لكن قفك الصاب بقى النبي عاية حتى هدي توبت كانوا وإلهي وصل نقول توبت سوى الأقبلية لكن حقي النبي وكجلي وحق أن شوف سنوي النبي قدون نوران لها ما أنت واقفين لها ودري لها لكن المسلمين توها واجب كوها قفك النبي عاي إنه الدنيا تقول كذا كون نوران تاريخ ذا مع حديث صحيح أنا وحي شكتا ومعروف إن هذا كهر النبي عاي باكري والله بنانك كل سبحان الله ما نسوي بنانك يالله قلبوها واللي علينا يا ورحال على سقف وبنانك صوت ما كده ما واحد لو النبي إنه عاي كري متكلة أنا وين حسوسين إياه قفك النبي عاية أما قال هالنقطة أما مسلم هالنقطة الدنيا يا إلهي دول يقتصين يا وقت مسلمين تو أود لهاين وجهات إسلامية وشرعية أود شري مسلمين تمركي دو في سقوط كاظو ومجالك قالوا وهيستلق بسن كريوايو waxay sameyn jireen go'doon bay ku sameyn jireen kufaysa isaga ah waxay dhageysan jireen bal inay gaaladaas nabiga caayaan in kaleeto maalinta ay maqlaan nabiga oo la caayo yastabshiruna bi ayda nabiga la caayo waxa weeyaan muslimiintu way ku istibshaarsan jireen maxay tahay sababtu ma aha nabiga inay jecel yihiin la caayo laakiin waxay ala yaqiin agtooda waxa ka ciidankaas uu jabi doono marka maxaad u maleynaysaa ummadda islaam sheeganaysa oo islaamku abtirsanaysa oo la yirninka Afrikaanka ah Quraanka lagu soo dejiyay asaga saxaabada rasuulka nabiga u ah annaka nabi nooma ah wuxuu nabi u yahay ninka rumaystay iyo ninka ku hadlay waajibna waxa ah dadka mas'uuliinta ah oo arinta waxa weeyaan ay hoos timaado inay xadka islaamka ay ka fuliyaan haday ka fulin waayeen doona imaam Ilaahi ayaga Ilaahay kula xisaabtamaya annaka waajibkeena waxa weeyaan aanu cadeyno isku qabiil maahin isku waxa weeyaan nama sheegto mana sheegano ninki waxa weey noogu abtiriyo oo yiraahdo reer bani fulan ba waxa ka soo bixina waxa weeyaan waa inaan Ilaahay ka xishoon weeye hada wa billahi tawfiq sallallahu daan iyo jinni baa u warama shaadiin baa la shaqaysata shaadiin waxa uu sheegay in sheekhu sunnah Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu yahay ayay u sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waylun likulli afaakin athim cadaab yahuudi halaan waxaana mid kasto beenala ee been uma shabadan ifki sameeye ee dambiila waxa sayaab leh oo Allah leeyahay dadka ka rumaystay nin gaaloobay oo diinti ka baxay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo dadka ka rumaysanaya waxaan aad wala siyaabay wax maanta ka dhacay gaalkacayo oo raba ninkii in la yiraahdo waxaas ma sameeynin gurigiisa la isku yimid odayaal qaar kamida la keenay wala difaacaya gurigiisa dhexdiisa la keenay nin la leeyahay waa qaali waa baarnay ninkaano waa dhageysanayoo waxba kama jiraan waa duuban tahay isaga la hadlahaye xirti baa ku salinaysa oo bilow muxuu Sheikh Bilow wada Afrikaano jooga isli jooga oo lagu salinayo baa meeshii taaganba Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wala takun lil kha'inina khasima خائنين تهدفاع الأمة هؤدودي هدفاع ما حد الدفاع سنين خائنة أو قالوا بي أو رسولك صلى الله عليه وسلم واحد الله سوقته الله سوقته محكمة الله صار زواجك وأساس أنا الكيس الله مريوه لكن إلا الدفاع ومعلق الدفاع هنا والريب اللي يكون دفاع سوى قال ميدو قال قفك الصومالي نمضوا صدح شرد من الله شرد أما صدح رقن من الله صدح يا قفك اللي هو الصومالي معه مسلم وشرط قفك مسلم وهي الصومالي ما رهبل ما لما قبيل كابعية مركو مسلم نقول رهبل وابترسله صدح الصومالي صدح ناس واركان قفك الصومالي محاكو امريكا وحا مسلم لماذا صومالي مسلم اسود المال هذا نكي قالوا بي
سعدنا معها مصومالنا معها شيطان لكرد من الهوستر ما قالناش أو الملك يمد علاقهم أو عرك لقى صوتوري أو كن سؤال لي أو شيطان وحوش شاقي أو شيطان وحي هذا بري ما كنا هاي قبيل هالشغلكم مليين طول هالشغلكم مليين دجان هالشغلكم مليين علماء بري ما كنا هاي نكا الصومالية إلا السوق قبته قعنها للسوق جيو أو نكا السوق قبته أو محكمة الله كيرو أو الله حكمه أو أبالك السلام مريو سيعلموا شيء اللي كسوا قالوا بي حكوا سوا دي لكن محكمة بها حكومة محكمة بها لصارية وعليه يكون الدفاع هي قبر بها الليدين قيامة الليدين نكا الشيطان هو وحيودي وحتى ما انت لها أنا وعلم بعض كان نقالنا حقيقة قاري علم بعض علم الظاهر من موجة شيطان بقى وحيودي نكا نوعاسي يا للدفاعي قفي عن حق تاجن بالدفاع أما نم بعد الكسر يا للدفاع وعن ليه ولا لها مسلمين تاع الصوماليين صدق علماء أي شيئين ولين ما نم قنني محمد صلى الله عليه وسلم السؤال ده أو سألوه قفاية عيب يكون تاي دجانك قال كعي كفرته قال مذو عيب يكون تاي إنه صبحه نين محمد صلى الله عليه وسلم عيبين هي رأس مالك ومضو ودينته الله سبحانه وتعالى جل جلاله ثم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدره يدين ورأس مالك إن دفاعنا واجب نوا ونك الله سوقمته أو لما حكم ذيه إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى ذلك الجهل هو هيو متك السوق قيلية اسكروا ما يسنها هي إلهي هنومي هذا توبت كنا نين كان بري هاللقى النقطة ونين هاللقى يستاغو هاللي صوت عافيه وحرجينا هي هذين نك الله سوقبته أو قال هاللقى سوقبته أو لما حكم ذيه الرب رمي قد يدون رب قد يدون وخير هل دونا وبركوب دونا لكن أيك على حيسي وأول ما يهبنا بيوحي كوزي درسنا بس النبي عليه صلى الله عليه وسلم حاجة رب كواركيسا حاجات غير كواركيسا حاجة حكي إنسان بلا يا بك بلا وحنا حاجة كواركيسا ورنين كاسوق بدرب بيني داهي أو محكمة كانوا وبركوب إنسان هذا هو ما سيدنا جزاكم الله خيرا. لو ليراهدو مقعيسى محمد يو حسين عبدي باليراهدا كان يكونوا ليهاي نيروبي من ستريت بوشوغا dadka yaqaana oo aqoonta u leh oo anigu shakhsiyan aan waraystay waa nin iska daroogaysan shaadka iyo sigaarka ay u dheertaa baashaan la dhuuqo oo xashiishada ah oo waxa weeyaan xashiishadan la dhuuqo ayaa u dheertahay dumarka waxa weeyaan yiraahdo waa ummahatul muuminiin ay waxba u kala soconayn qofka ahadka noocaas oo saaxirka ah ayuu Cabdiweli Shiical cilmi ragaal kacyo wakiil uga yahay Cabdiwelina fisqiga iyo xumaanta kama bilaabin maanta uu ku hadlayo qadiyadan ee waxa ka horeeyay jaadka iyo sigaarka aan cunayno rasuulkii nooga yeelay fisqi nooga yeelow ee sa ay ku jirto ayuu qaadi jiray meesha uu ku magacaabay baytu rasuulna laguma tukado asaguna ma tukado sida dadka la joogay oo yaqaana noo sheegay jaadka iyo sigaarkaas baa meesha yaala barkad baa ku taala diyo ku jiraan dadka loo qaado liyaa waa tahliil waa cabaysaan oo wax weeye dadka lagu sixraayo waxaan ogsoonahay jaadka uga yimaada Nairobi oo asaga iyo xirtiisu meesha ku cunaan waa free lacag lagama qaado kadalika asbuuci hal mar oo kamid ah ayaa waxaa laga keenaa Nairobi biyo leeyahay waa tahliil Sheekh Bilo waa soo dhiibay oo waxa weeye Nairobi ka soo dhiibay barkadaas lagu shubaa dadka ayaa la yiraahdaa cabba jaadka marka la cunaayana biyahaas la dhexgeliya dadka asaga la jooga oo uu duufsaday qaar kamid ah markii laga weydiiyay jaadkan darooganimadiisa waxay yiraahdeen jaadku waa ka fiican yahay geedaha kale oo dhan maxaa yeelay wuxuu ku baxaa ismullaahi al-a'zam ayuu jaadku ku baxaa sida culimadu noo sheegeen wuxuu soo maray Cabdiweli Shiical cilmi yara xilli laga joogo 2 sano ka hor taqriiban وأنا وأندجاهيج كود جيستي أصغوا عاية هي أنبياء إلهي نبي الله موسى أيو أرنا هي علم ظاهر ويقانا علم ظاهر كان واكل عيبوبي وهذا كفر صريح قال لي ماذا صاوفنا ماشي هسيمرك وحويان دراجة حق لقى كان هي دراجة ماشي تعلق وصون لقو ضريب
qofka muslimka ah waxaa qariib ah dad inuu haysto rumaystay inuu yahay weli soo daahiray asagu markii dambe oo kartoonkan sawirka u keenay oo uu yidhi waa nebiyullaahi moxamed uu yidhina ay dadkii atbaacdiisa ahaa ay rumaysteen heerkaas ayaa jahliga iyo kufriga u gaaray munkarkana haddaan laga hortegin oo aan laga digin oo aan laga hadlin munkar kale ayuu dhalaa sidaasaa waadixa munkarkaasi midba mid buu dhalaya shaydaanku markuu ogaada middaan inay martay oo hirgashay mid kale mid saddexaad buu ku celinaya waxaan sida culummadu ay kusoo gebagabeeyeen aniguna u dirayaa nidaa oo u jeedinayaa reer galmudug gaar ahaan gaalkacyo dadka degan oo beelaha halkaas degan ka mid ah oo ninkaani uu ka dhashay oo aan ka soo wada jeedno ilaahay ka cabsada haddii qabiil aad u dhaqnan jirteen maanta nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam difaaciisa u dhaqnada hantidiinna ku bixiya codkiinna ku bixiya midka asaga difaaca haya oo qiilka u raadinaya asaga waxba isma dooriya hay ahlucilmigu ka hadlaa nebiga nuqsaan yar qofka u geystaa waa gaal gaalnimadiisuna waa kufri diintu uga baxahayo weyi meeshaas abaarta ka jirta ee dhibaatada ka jirtaa awal waxay ahayd qatli iyo dil iyo macaasidaasay joogtay hadda waxay joogtaa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam in sawir kartoon ku jira laynkaga dhigo mana ka saaraysa hadduu yidhaahdo kama wadina sheikaygii baan ka wada ka saari mayso oo waxa asagu afkiisa uu ka yidhi oo uu qirsanaa oo uu ku hadlay oo musajelka ah oo cid beddelaysaa aynan jirin baa iqraar iyo daliil ugu filan waxaan u dirahayaa farriin gaar ah culummada deegaanka ka soo jeeda nuucyadooda kala duwan inay ilaahay ka cabsadaan oo ummaddooda wax u haray ma lehee la badbaadiyo oo tawxiidka dib loogu sharxo oo dadka tawxiidka iyo caqiidada la baro oo laga badbaadiyo kufrigaa sariixa ah sababna ay ugu noqdaan inay ummaddu ilaahay ku xirmaan subxaana wa tacaala waxaan leeyahay maamullada arrintaa iyada ah u istaaga inaad wax ka qabataan oo wax la taaban kara aad ka qabataan haddaynan maanta taas difaacin oo aynan wax ka qabanin maxaad ummad u haysaana u difaacaysaa culummadii iga horraysayna jazaahum allahu khayran sala allahuma calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin بسم الله يا مصطفى بالله يا رسول الله يا جوهر الدنيا ma aha halkani wax lagu soo koobi karo fidnada uu ninkaasi deegaanadaasi ka wado waxaase nasiib darro ah in maanta dadku uu duufsaday ee xirtiisa ku biiray ay boqolaal karu dhaafayaan waxaana u badan carruur yaryar oo ah kuwa heesaha uu u dhiibo iyo haweenka intaan xogta ninkani raadinaya waxaan sidoo kale soo ogaaday in toddobaadkiiba ugu yaraan 2 maalin ay dumarku ugu niikiyaan guri weyn oo ka dhistay halkaasi wuxuuna ku dhahaa bal maanta waa caajisanahay bal iga farxiya sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in dalka oo dhan uu mas'uul ka yahay oo aysan jirin cid ka sarreysa waxaan ilaahay ugu sheegayaa caanaha gabdhaha kusoo diyaar garoobay allah idinku xariimo hadda caawa iga farxisaan oo haddii ilaahay ku horta waddanka anaka mas-uula هيا نعم عد wax saxiix karta oo ilaahay saxiixda uga naxyo waana horta waddanka ma joogo Soomaaliya wuu soo joogay hadda ka bacdi Soomaaliya نعم marka waxaan idin sheegayaa hadda caawa inta iga farxisaan iska cadsana waa mataqaana oo tilka ya gacmaha ya lugaha ya qofka meel kasta ka ciyaartaan oo istartaan u weynisaan wallahi buksa amaha buka وسلام قبليني كنايي نبي قول أماني نصري النعمة وين بها إبنيكم الله يستعين waxaa sidoo kale ogaaday inuu leeyahay koox dhameystiran oo faneed oo ciyaal u badan waxaana ka marnayn musishinkii heesta u tumi lahaa iyo kaamirmaha